يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر ماشي إنه تشالنج يبو نبغو تلمامية dadka waqti baa ku iman doona qofku diintiisa inuu haysto oo ku dheganaado ay la mid tahay nin dhuxul haysta yani dhuxul daba inaad qabataa waa challenge adag waqti ay sida diintu ku noqon doontaa iman doonta ama xadiidka ibn mas'uud warinayo inna min waraa'ikum zamanu sabr li tamassuku fihi ajru 50 shuhada minkum maalmaad dambeeya qofku diintiisa inuu ku dheganaado uu la mid yahay konton idinka ka mid ah nabigu tilmaamay laakiin insaanku dhibta tirada badan la uma adkaysto ilaa inuu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane sawgeed baa waxa la yidhi yaa ayuhal muzammilu qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحلي كان استوضوبا يو كع كيسدد يوبا ليلي كعو إلهي ستاك markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini'aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii xidhiidhka la lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxaad soconaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan aad tiraahdo warbal waxay amaahema inaad wax ka weydiin inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiya waxa weeyaan rabbu samaawaati wal ardi inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco ساوجد بقى النبي محمد بركي دبتو كهرت بي إلهي وحلي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كانس دادا يو كانس تضوبا يو كع هبينكي انتي سبضاني يرمو يعني نسكي أما وحير كي يريبا ليل حلو قرع الليل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بإلهي ورعلص بالغودي بيه دعوة هي الدين كان هي القرآن كان هي السيستم كان ينتقاضى أرين فضود ما هبا إلهي لي ور علص بالغسين يا لكن ور كان علص وحقوف فضويين يا وامحي حديد كاد إلهي لا لا كلما حديد كانوا رب لا لأنه ضعيفه اسبدل كان لوش إني حق حمي ودقدقية مركز تو حوق يستحديد كاد إلهي لا لا ضحينا حجسدد حجسنيس الدين كاغيه وحاغو وحوغوبيا اذا آيات كان مركان اسكو سو دارو انا ربا ان الراي غودون كتلمامو كوبا waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada aan cilminaad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma kar noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil ba ka riixi kara hadana daliil haysanin waa jabaysa إذن علمين يهي لابد شهواتكنا حديد كاد إلهي لا لا دي بدني دي سريحة أنا دي إلهي حديد بدن لا يالط فافنت الدين تنا environment بيكو أبو ريسات كل إحنا ولا انكرتيد أنا الدين تفافي سيد ومركاسي أدفافي سيد صحابة دي النبي مركا مسائل كاكو أتكايستين noloshu uma fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la torture gareeyo qaar la dilo qaar torture-ka ku dhinta isagoo nabi maxamed arkay alayhi salaatu wasalaam qaar torture lagu dilo saxaabadiisa kamida qaar sidii loo torture gareynayay iyagoo tii u dambeysay laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu ma caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بإلهي مؤمنين توحى كمد الرج كرن شيء وحي إلهي وبلن قادين
soo sheego qadiyatu sidqi dan kalama hadlaynin ka run sheegay wixii maxay ballana ay ilaahay la galeen fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa layidhi waxaa ka mid ah qaar sidaa ku dhintay iyagoo jidkii ku taagan iyo qaar sugaya waddadaas inay hayaan ilaahay markuu saxaabadaa tilmaamaya waxaa lagu tilmaamay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi wa iqaami alsalaati wa itaa'i zakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar waa rag baa ilaahay leeyahy kuwaasi aanay mashquulinin tijaarada iyo bayca iyo waxgadista iyo baamisha lacag xoogsigu ama adduunyo xoogsigu aanu ka mashquulinin can dikri illaah ilaahay xuskiisa iyo wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa salaada ogisteeda marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhiba laakiin tan kala agteenna ah taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay ilaahayna wuxuu tilmaamayaa qolada tan waxa lagu sifeeyay inay yihiin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa waayo yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar maalin bay ka cabsanayaan dad shaqada in laga eriyo dhaqaala daraad ka yar cabsanaysaa laakiin qoladani waxay ka cabsanayaan maalin qalbiyada iyo garaadka iyo indhihu iyo wuxuba gelgelmaan cabsida maalintaa ka haysa daraaddeed mar kasta iyaga waxa priority-ga ule number 1 ah cibaadadooda iyo kooga kan waxaan leenahay kow ahlu kitaabkii hore hadday gurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lama sabaruu wa kaanuu biaayatina yuuqinuun waladiina yumasikuuna bilkitaab kitaabka kuwii qabsanayay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nebi maxamed kaga baxday calayhi salaatu wasalaam iyo rasuulullaahi muxamed iyo qur-aankii koowaadee nebiga ku soo degay siduu u tawjiihiyey xaguu u diray waxaan kaga bixi karnaa baynu leenahay marka aynu garanno waxaynu haysannaa waxa inaga maqan inuu ka qiimo badan yihi alictizaaz biddiin yacni ma waxaan raadinayaa qiimo badan mise waxaan haystaa qiimo bini aadamku markuu wax iibsanayo ama wax gadanayo waxaad wax ku raadisaa maxay dee waxa qiimaha badan le inuu xaggaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha ma diinkaa qiimo badan oo aynu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay wuxuuna baraya inaynu diinteenna muctasiin kuwa ku faano oo xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno waa salaada iska tuko laakiin dee bal meelaha aan lagu arkayn iyo su-aaluhu waa musqusha ma lagu tukan karaa iyo meelaha ma lagu tukan karaa iyo gaadhiga adigoo wada kursiga ma iskaga tukan kartaa iyo meelahaasay su-aaluhu badan yihiin laakiin alictizaazu biddiin uu ka gedisan yihi diinta hadda inaad muctas ku tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun war cize iyo sharaf waxa ale baa ilaahay leeyahy alle iyo rasuulkiisa iyo inta raacday munaafiqu se ma fahamsana taasi maxay keensanaysaa saxaabadii diinta haysay bidhbidhka noloshu ma niyad jebinin maalan dagaaladii ugu waaweynaaye saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadasiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taallaa ciraaq waxaa inteeda badan haystay bershiya dowladdii iiraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaa'in waa baqdaad dhinaceedaba kama fogaa maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iiraantaee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid a dagaalka qaadisiya 200 kunoo gaalaa iyo 30 kunoo saxaabaaba is hortaagan iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya 10 mubashiriin nin ka mid ah sacd ibn abi waqaas baa ciidanka wata qolada kalena waxaa hogaaminaya nin rustam la yidhaahdo jananadoodii waaweynaaye laga dambeeyey ka mid ah
markaan rustam wuxuu rabaa bal nimankani mentally siday u fakarayaan inuu ogaado. wuxuu Sacad weydiistay inuu u soo diro cid wada hadal bal u dhex maro. nin baa loo diray wuu soo celiyay, mid kale bal ii soo dir waa loo diray, 3 nin baa kolba mid u tegay. 3 saxaabi ayaa kolba mid u tegay. مثلا mid ka midun haddaynu soo qaadno Ribciy ibn Caamir baa ka mid ah. ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon hadday tahay inaan dhaqaale bixiyo. marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay, dabeetana red carpetska ayaa la waday dhulaad u ballaadhan. ninkan muslimiinta ka socda fars yaroo gaaban buu wataa, waa nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray, dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha. Rabiic ibn Caamir oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay. dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyey faraskiisii, kama degine. waxay culamada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka miduu faraska ku xidha. dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaggu soo dhaca. waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago, hubka dhig. boqorka adigoo hubsita looma tago. wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay, anigu umaan rabine, haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa, haddaydan rabinna waa iska noqonaya. boqorkii waa loo sheego, waxaa la yidhi Rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya. soo daaya buu ku yidhi, maca hubkiisa soo daaya. isagoo wixiisii situu soo galay. su-aala baa la weydiiyey markaa, maa jaa bikum, war maxaa idin keenay? abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo, maxaa idin keenay? saxaari uga timaadee. wuxuu ugu jawaabay, allahu ibtacathana linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illahi waxda wa min dayqi dunya ila sicatiha wa min jawri aladyaani ila cadli alislaam. ilaahay baana soo bixiyey inaanu ka saaro dadka ciddii uu doono addoommahaysa addoonsanayaan oo ilaahay addoomma u dhigno. waxaan u soconnaa buu leey inaynu bini aadamka xorayno, makhluuq kale inaanu addoonsan, ilaahay oo qura inay dadku addoommo u noqdaan oo dadku xorriyad helaan baanu u soconnaa buu leeyay. cibaadadu ay ilaahay gaar ku noqoto. waxaanu kaloo u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saarro, ballaceeda u saarro. haddaba ninkan kaarbatyada cascas dhigtay ee carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaa kaa saaraya. cidhiidhigu waa qalbiga. kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn. kaarbatyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiima uma samaynayso. waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican. marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye, cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa ee waxaan kuu saarayaa maxay? ballaca adduunkaan ku geynayaa buu leeyahay. waxaan kaloo u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno, islaamka cadaaladdiisa kuu saaro. yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka bidhbidhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay, inuu muctas bidiini yahay, diintiisa wax u dhigantaa inaanu jirin inuu rumaysan yahay. taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado. ilaahay wuxuu ina leeyahay xataa haddii sida kaloo dhan laydinka xoog bato, walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin. war ha liidanina baa layidhi, ha murugoonnina, idinkaa koreeya haddii iimaanu jiro. haddaad rumaysan tahay rabbigaayo ku xidhan tahay, adaa koreeya. qiso labaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbayey say u muuqdeena, markii bayt almaqdis muslimiintu ay furteen. bayt almaqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kaloo 10 almubashiriin hogaaminayay, cubaydata bnu ljaraax ayaa ciidamada watay. dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen shardi ah furaha sulxi baanu gelaynaa, saasaananu idinkula heshiinaynaa, laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado, isagaanu furaha ku wareejinaynaaye. sidii buu ku soo baxay. abu cubayda cumar buu la hadla, wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen, dee haddaad noo iman karaysa kaale. cumar wuu soo baxay, wuxuu rabaa firihii bayt almaqdes inuu la wareego.
meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho uu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك حديثك حاكم ورينيو magaalada dadkeedii madaxdeedii inay ku arkaan sidaan adigoo ninkan faydan ee cagaar dhoobada kule in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada gayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adigoo kaa xishoonaya buu leeyahy laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low gayruka qaalaha mid aan adiga ahayn ma warkaas ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yara rabuun isagoo amiirulmu'miniin kugu muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inna kunna adalla qawmin dad aad u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyahy markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meelaan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobayna waxaynu uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam wa min waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim wainnahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun ilaahay wuxuu yidhi xejiso fastamsik biladii uuxiya ilayk wixii lagu soo waxyooday xejiso waayo jid saxa baad ku sugantahay baa ilaahay leeyahy jid qumman baad ku taagantay wainnahu ladikrun laka waliqawmik qur-aankaas iyo waxyigaa iyo diintaa lagugu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay adiga iyo tolkaaba baa ilaahay leeyahy ilaahayna wuu idin weydiin doonaa marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أو حلاني شيء كوات حويان إنه غربدا كقبحنه وحي أهل كتاب كهور إلهي كتل مامين كقبحيه إنه كقبحنه وحي صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كقبحضي inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhan baa iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan ka soo horjeedaynuu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahee geesinimada adabiga abaa ka roon kelimatulxaq inaad mar kasta ku dhawaaqi karto waxaaga inaad muujisan karto inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xejisan karto ولذلك بقى إلهي غير بنو إسرائيل كي هقاقي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها ليوبا إلهي للصبر والله الصبر لك تبال لي مشاكل كوكو بدن دونايو
وبني آدم وحن كلو إذن كهر إيمانا يا إذن كصبر بدين نبا إلى هيلي ورابطوا في ثغوركم قوابها أتكو جرتان إنه فيسيدين نحي جسته إلهنا كعب صدى وقولي سندون تنبا إلى هيلي سبحانه وتعالى انت كدب حينو باهرنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ دكو حكي سنينو هدنا انت اينو سف ضد وحوة ذكرنين انو وضنو marka qofka la yiraahdo diintaada xijsadadka badhba u fahmoon cunfi iyo dagaal iyo qalafsani iyo insida maqiiq meel kasta kala horta sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso laakiin de martaatay usulubna ونولو يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب عائشة يا وحي شيغيسا حديث الشيخين كورين ايان ولا النبي قوتمي يقعد دكو تشيس يو عايا كاسا وحي كويل هذا السلام عليكم السلام لام كان لغا بوديا لكن waxa la iska dhigaya in iyadii la yiri السلام عليكم السلام عليكم وغيري كركاغا هات وهبار السلام عليكم نوا ربها كو حفديو نبدقلي وانا كركاغا هات السلام عليكم نوا موت يغيري بلايو كركاغا هات دبتنا عايشه انت عروتي مركبه waxay tiri بل وعليكم السلام واللعمه idinka arada alle iyo geeridiisa nacdashi korkiina idinka ahaata bay tiri nabigu kaleey salaatu wasalaam isagoo kuwana maqlay wixii ay yiraahdeen Aisha maqlaya waxay tiri ayu Aisha hadana tala siinaya wuxuu leeyahay Aisha inna allaha rafiiqun yuhibbu ar-rifqa fi al-amri kulli Aisha ilaahi waa rafiiq oo ku si dabacsan dadka u dhimriya yuhibbu ar-rifqa fi wax walbana in si dhimrisan loo sameeyo ay alla jeceliyo subhanahu wa ta'ala Aisha waxay mood nabigu inaanu maqlin mala dhimirtani waa warkii baanu maqlina aw lam tasma' ma qaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahi rasuulkiisiyo qad qultu alaykum nabigu wa maqlay yani wa alaykum bana dhaw soo gaabi waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayada imaam muslim waxay tilmaamaysaa in allaha ta'ala rafiiqun yuhibbu ar-rifqa ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواية كلام إمام مسلم ورينا يا رجينا يدنا وحي شيغيسا عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وحنو قدن لنا يوم عقيدة دينية مبادئ دينية أخلاق دينية دقن كينا دمانتو دان حيج سنو تا معنى هيدنا لقى ما فهم أيوه عنفي يو المشاكل كلام أبور لقى ما فهميه وح لقى فهميه إنه عقيدة إسلامية يدقن كإسلامية ينقض الموضوع قضية كلام تلمامية وحوية وإنه كلا قرنا محن قادنا محن كتجينا وإن كلا قرنا مينو ميد مينا وإنه بابا إنه ذوبان بسي اندماج halkan marka joogtaan erayaal la idin sharxa la yiraahdo maxay assimilation iyo integration dadka badbay yiraahdaan geed toobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhaxeeyaan oo waxay galaan maxay integration geedtoog waa inta meel isku qafilso xira yareeda wax walba ma tiraahdo taade adigu bay ka suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxa kan kama suurtagalaha إن هذا دميل سكو قفيل كاريس أنا كاجي بكورونا إن سكو قفشوا وارد حاجة نصابحين خدر سمكونا دوا هذا أرد انتي وسكملنكو وحصوها هذا وحيجونا ينقو عديان إن أنا نبهنا نفهم نولا إذا integration مال والبوح على integration politicians كيني ما كسياسيين تي بلشة كستو homogeneous ويكفوا ضد بلشة كلا جديسين ان تعددكو iyo noocyadka kala gedisan waxyaabo qaar kood way ku fiican yihiin laakiin siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragtiyo isku dhan u jeedo dhan qura wada kaxeeyo
laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saas u badan yihiin laakiin adigu inaad integraysto waa sax laakiin laba weerood waa inaanu kala garanaa ما الفرق بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كضيا نو وحول بكا قادنا يين وحكا فائدنا أقولنا ككرسنا وحوين بول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري مرينين إنه كقادنا ويا لكن مسائل كعقائد يا دين يا أخلاقيات كان يا عبادات كان وحين إنه كتنازل معها إنه كتنازل معها فكوين إنه كلا جرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إنه يدعي دونته لا تتبعون سننا أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دونته أبو نبي يقولي ودوين كده كيدين كهرية تاكا تاكا يرودودون صحابتي دمنتك هيد وحسك صور عسى دولك حريصة يا عين كان أبو وركا كلي مركز النبي وحولي ولبا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه أو لدخلتموه حتى هدي قد مسلوا قلي قد مسع قلي هدي قلان وكذا بقلي يسمون النبي مركز واحد يا رسول الله اليهود والنصارى ما يهود يا نصارى قال فمن يا كلام النبي يقول يا كلام مالك قالوا هدنا النبي يقول يقول حديث كان وكله سورنا من قبلكم براعي دونتان مركز واحد الروم والفرس ما رومانسك يو بيرشيانكا يا كلام النبي يقول ابن حجر رحمة الله عليه مركو لبدا حديث بفسير يوحو ليه وحي سياسة دولية يباب كاكو صاب سنة wadada romanska iyo bershiyanka ayaa raaci doonta haday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxan kalena waxa raacaysan maxay اليهود والنصارى idan asalku muxuu xadiidkan inoo tilmaamaya wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ah wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuudiya nasaara muxuu kaga soocan yahay romanis iyo bershiyan muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo aqaa'id iyo diin bad kaga soocan tahay maxaa wada leedin تجارب الإنسانية وحي كترسن بني آدم كوحي اكسبيرينس كو كل حالي أقوان تن لشيء يورد من تدبدن وامحي وتجاربتي بني آدم كو كلا حالي إذا وحي نقاضنا إنه يوحي نكتجينا إنه نقرنه إلهي مركو قرآن كورمي أنبياء إلهي كورمي في سورة مريم برجينها أنبياء إلهي كورمي النبي بالنبي بركي أنبياء الله كورمي يا إلهي الصوت ضبا وحولي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسب إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية النبي آدم يكوي النبي نوح يو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحي دلاني أنت أنو هنون نبي إلهي لي إلهي آيات كيسا مركا مقلان وخضوعانا وسجودا لكن جروب كان نبي هذا كبحسن ما إلهي طلبا بهدنا فخلف من بعدهم خلف جروب بقوات ضبان مريبا إلهي لي ووضدوا دي كواعد محي سمايه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي اسكر راعي كواسي نارتي قليا مالوت الماما محاك وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحنودن لنا لنا حي وإن نقرنا وحين هيسانينو وإن نقرنا تجاربتي هوري إلهي وحنوت الماما يدول وحي للربي إني كتغان mooye wixii la rabay inay xijistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah مثلا ilaahay wuxuu tilmaamay watlu calayhi naba alladii aataynahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray
kaa ilaahay markuu tilmaamay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay haddii ilaahay doonayo qofkani qof sugan buu noqon lahaa waa kaa la soo sheega waxaa la yidhi famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaa kale sidaa maaha xoolaa kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay harariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma harariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maaha haddaynu waddadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonayaa ninba intuu hayuunbuu xoorayaay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaydaanko qura maaha dad mutarabisiinana inay waddada fadhiyaan dad ugaadhsitaga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq in badan oo ahlu kitaab ka midi waxay jecel yihiin baa ilaahay yidhi inay diintan idinka bixiyaan iimaanka dabadii inay gaalnimo idiin celiyaan weliba iyagoo uu xaq u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraaddeed baa ilaahay yidhi dee kuwaasina iyana waa joogaan marka waxa weeyaan wadcigii oo adag shaydaan oo meesha jooga qolo kaleoo kuugu adhsanaysa oo meesha joogta iyo adigoo labaclabacla ah hadday is heshaan dee arrinku waa khatar marka waa inaynu kala garannaa uun maxaynu kororsanaynaa maxaynu aan dib ugu soo noqdo markaase waxaan ka bilaabayaa halkan waynu nimiyo su-aasha ah si fiican qof waliba uga jawaabo ma waxaagii adigoo haysta inaad wax ku kororsataa baad rabtay mise inaad waxaagii wax ku beddelato